ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu kitaabkiisa xakiimka ku yidhi wiil mu'min ah iyo gabar mu'minad ah uma bannaana daayiqna uma aha mana u cuntamayso haddii ilaahay iyo rasuulkiisa amar ay xukmiyaan inay ayaga iskooda amarka doortaan. maxaa yeelay qof alla qofkii rabbi caasiya rasuulkana caasiya faqad dalla dalaalan mubiina. waa dhumay buu rabbi yidhi subxaanahu watacaala, dhumitaan cad ayuu dhumay qofka. oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii bacdama uu ka leexday ayaa wuxuu ku dhumay dhumitaan aad iyo aad u weyn. haddii wiilka mu'minkii gabadha mu'minada looga baahan yahay inay rabbi subxaanahu watacaala amarkiisa ay qaataan oy ku socdaan wuxuu ilaahay u diray subxaanahu watacaala, ay ka haraan waxyaabaha rabbi uu u diiday, ayaa waxaa waajib ku ah qofka raba janno in la siiyo oo cariiriga adduunka laga badbaadiyo oo aakhiro ilaahay subxaanahu watacaala uu u naxariisto inuu itibaac ku sameeyo hadyiga ilaahay iyo waxa rasuulka uu la yimid salawaatullaahi wasalaamu calayh. ayadoo sidaas ay jirto ayaa kitaabkii xakiimka ahaa oo ilaahay mar kasta uu ku dhaaran jiray dhexdeena uu yaalaa. sunnadii mudaharada ahaydna waana dhex taalaa. qofka mu'minka ah loo cudri maayo mana cudurdaar u helaayo in aakhiro uu ku doodo ama uu yidhaahdo ilaahayow cilmi la'aan ayaan saa ku soo noqday. taana wax xujo ah ama cudurdaaroo aakhiro u noqonayso ha yaraatee ma jirto. wiilka mu'minkii gabadha mu'minadda ah ilaahay mar kasta waa ammaanaa, kitaabkuu ku ammaanaa, jannaa loo diyaariyaa, cadaabaa laga badbaadiyaa, cariiriga adduunkii kan aakhirana ilaahay waa ka faydaa subxaanahu watacaala. sababta ay ku heleen ayaa waxay tahay mar alla marka ilaahay baa saa yiri la yidhaahdo ama rasuulkaa waxaan jideeyey, isla markii waxay leeyihiin samicnaa wa adacnaa, waan yeelnay waana adeecnay. bacdamaa saa ilaahay uu nagu ammaanay ayaa waxaa ka rabaa marka inaan ilaahay aayadihiisa ku tadabburno oo aan qaadano waxyaabaha ilaahay uu noo diraya subxaanahu watacaala. haddii ilaahay yidhaahdo waxyaabo axkaam ah oo ku saabsan xagga dahaaraadka, xagga labiskii akhlaaqaha dumarka looga baahan yahay, ayaa in alla intuu ilaahay naga karsiiyo caawo aan wax ka sheegaynaa. gabdhuhu sida lala socdo ilaahay subxaanahu watacaala qayb ayuu diinta ka siiyey. marka aad qur-aankii axaadiista akhrisana waxaad ogaanaysaa in ilaahay waxyaabo fara badan oo axkaam ah dushooda uu yeelay. gabar kastoo muslimada oo rabta in qabriga loo waasiciyo oo sakaraadka loo khafiifiyo oo su'aalaha loo fududeeyo oo siraadka la gudbiyo oo saqara iyo samhariira iyo naarahaas xunxunka o dhan ilahay uu ka badbaadiyo ha raacdo waxyaabaha aadaabta ah ee ilaahay uu u jidaynayo subxaanahu watacaala. dhowr akhlaaq iyo dhowr aadaab iyo dhowr axkaam ayaa loogu talagalay inay la yimaadiin gabdhaha muslimaadka ah. tan ugu horaysaan ku bilaabaynaa waxay tahay inanta muslimadda ah waa inay ogaato qaayaha iyo ujeeddada adduunka loo keenay. waxyaabaha rabbi ugu abuurtay oo meesha ay u joogto waa inay ogaataa qalbigeedan uu ku jiraa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay waxa loo qalqaday oo adduunka loo keenay inay cabas iyo ciyaar iyo inay labisato meesha ay ku baxdo iyo inay waxay doonto samayso ma ahane waa inay ilaahay caabudaa subxaanahu watacaala. waa axkaamta ugu horaysa ama akhlaaqda ugu horaysa oo looga baahan yahay inay ogaato gabadha muslimadda ah. liannahu ilaahay ayaa kitaabkiisa ku yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. jinni iyo insi lama abuurin, abuurkoodana lama rabo. rabbina wuxuu ku falaaya ma laha ilaa inay ilaahay caabudaan mahana subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yidhi aniga risqika ma rabo, inay ayaga isquudiyaanna ma rabo, inay aniga iquudiyaanna ma rabo. ilaahay asagaa wax arsuqa oo quwadda iyo awoodda ugu sarraysa ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala. ina allaha huwa arasaaqa dulquwati almatiin. ilaahay waa allaha wax arsuqa oo quwadda sarraysa iskale. saa ayuu rabbi yidhi subxaanahu watacaala. haddaba gabadha muslimadday ogow axkaamta ugu horayso ee lagugu talagalay inaad ogaato waxa weeyaan inaad xusuusato ilaahay waxyaabaha uu kuu qalqaday. qaayaha iyo ujeeddada adduunka aad u joogto waa inaad ilaahay caabudaa subxaanahu watacaala. liannahu rabbi aayad kale ayuu ku yidhi insaanku ma wuxuu u maleeyaa an yutraka sudda dheerdheer in looga tegaayo, ciyaar in loo khalqaday. taas may la tahay buu rabbi yidhi subxaanahu watacaala. marka saa laguma abuurin, ilaahayna dheerdheer kuguma talagelin, ee waa inaad ilaahay cibaadadiisa iyo waxyaabaha uu kuu diray aad la timaado. ujeeddada labaad oo looga baahan yahay ama laga doonayo gabadha muslimadda waxay tahay waa inay la timaado aadaab iyo akhlaaq.
liannahu rabbi subxaanahu wa tacaala diin aan aadaab iyo akhlaaq lahayn rabbi abaalmar wanaagsan ma siiyo qofka liannahu rasuulku ninuu la dardaarmahayay salawaatullaahi wasalaamun calayh ayuu ku yidhi ittaqi allaaha xaysamaa kunta meel alla meeshaad joogto ilaahay ka cabso hadday xumaan kaa dhacda wanaag raacsii haddaad dembi gasho tawbakeen way kaa tirtiraysaa wa khaaliqi innaasi biquluqin xasan dadkan waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan haddaba aadaabta labaad oo laga doono inanta muslimadda ah waa inay lahaato akhlaaq iyo dabeecad fiican akhlaaqda macnaheeda ma aha gacmaha iskor saaro oo meel fadhiiso laakiin akhlaaqda xaqiiqda waxaa loola jeedaa wuxuu ilaahay kuu diray yeel wuxuu ilaahay kuu diidayna ka tag maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi anaa dadka ugu akhlaaq badan caaisha waa loo tegey waxaa la weydiiyey akhlaaqda rasuulka markaasay tidhi kaanat khuluquhu alqur'aan rasuulka akhlaaqdiisa waxay ahayd qur'aanka wuxuu ilaahay u dira waa yeeli jiray wuxuu rabbi u diidayna waa ka tegi jiray subxaanahu wa tacaala dabeecad wanaagga waa shay lagama maarmaan ah cilmi kastoo aad leedahay cibaado kastoo aad la timaado haddaynan dabeecaddaada fiicnayn ilaahay agtiisa wax wanaagaad ku leedahay ma laha dadka bani aadamkana waa saas oo kale marka akhlaaq wanaagsan ayaa laga doonaa gabadha muslimadda ah oo axkaamta labaad ama aadaabta labaad oo looga baahan yahay taasay markaa tahay ujeeddada saddexaad oo loogu talagalay gabadha muslimadda waxay tahay waa inay ahaato gabarda istaxyi ah oo xishood iyo sariig leh xishoodka macnihiisa waxaa loola jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu diiday ka sariigo wuxuu ilaahay kuu diiday ama uu kuu nacay ha samaynin hana ku degdegin xuduudaha ilaahayna ilaali waayo rasuulku xadiis ayuu ku yidhi al-iimaanu bidca wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo 70 ama dhowr iyo 60 qaybood فأفضلها قول لا إله إلا الله وحا أغو سرية أغو وينبوري ويري كلمة لا إله إلا الله وحا أغو هوسية ودد أو قشنكي وحيابها ددك دبايا لغا قاضو والحياء شعب من الإيمان سريكتنا واقيب إيمانك كمذا أي رسولك يري هذا بعدما سريكت إحشوتك أويهي قيب إيمانك كمذا وحا لغا دونا إن أضلت ماذا حشوتك ربي أكو دراي سبحانه وتعالى sida aan la socono nebi muuse calayhi salaam ayaa wuxuu ka dilay baa la yidhi fircoon nin macnaha dad ka mid ah nin fircoon ka mid ah markuu dilay ayaa wuxuu aaday madyan markuu tegey ayaa wuxuu ku arkaa la yidhi meesha gabdho meel jooga 2 gabdhood oo arigooda meel ku ceshanaya iyo koox arigooda waraabsanaya oo rag ah ayuu markaa arkay nebi muuse wuxuu u tegey 2 gabdhood wuxuu ku yidhi maa khadbukumaa muxuu xaalkiinu yahay qaalataa laa nasqi waxay dhaheen annagu ma waraabsanayno xataa yasdura ricaa wa abuunaa shayqan kabiir ilaa rucaa'dan iyo dadkan wax waraabsanayo ragga ah ay meesha ka tagaan aabbaheennana waa nin oday ah oo duq ah oo waayeel ah intana ma imaan karo in alla intaan raggaan dhexgeli lahayn waa ka sariiganaynaa waana ka xishoonaynaa waxaa noo fiican oon iyo gaajo inaan u dhimano in alla intaan raggaa dhexgeli lahayn nebi muuse arigiiuu ka qaaday gabdhihii waata ilaahay kitaabkiisa uu ku yidhi fasaqaa lahumaa uma tawallaa ila dilli waa u waraabiyey nebi muuse wuxuu soo fadhiistay geed hoostiisa wuxuu yidhi rabbiyow wax alla waxaad ii soo dejiso oo khayr ah waa isaga baahanahay 2 gabdhood way baxeen aabbahooday u tageen waxay u sheegeen qisadasay u dhacday 2 gabdhood mid ka mida ayaa loo soo diray oo la yidhi haddii meesha uu joogo soo wac ilaahay asagoo ka sheekaynaya 2 gabdhood wuxuu ku yidhi fajaa'athu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa nebi muuse waxaa u timid 2 gabdhood mid ka mid ah ayadoo soconaysa sariig iyo xishood korkii ku soconaysa saasay ugu timid buu rabbi yidhi marka sariigta ayuu rabbi ku ammaanaa subxaanahu wa tacaala xishoodka ayuu rabbi ku ammaanaa oo wuxuu leeyahay way soconaysay gabadha sariig ayadoo ku kor soconaysa ayay markaa timid waxaa u dhexeeya farqi weyn inamada maanta jira iyo kuwa rabbi subxaanahu wa tacaala u ammaanayo naagaha maanta jira waa kuwa aan sariig lahayn waa kuwa aan xishood lahayn waa kuwa ilaahay sariigtii iyo xishoodkii ka qaaday li'annahu rabbi waxyaabaha uu u diiday ayay ku dhex jiraan wuxuu rabbi u dirayna laguma soo dhex arka daqiiqad ama hal saacba allah ka dhigee rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo maray nin kala waaninaya oo dhahaya maxaa waaye adiga sariig iyo xishood badnida xishoodka maa dhaafteed rasuulku wuxuu yidhi dachu fa ina alxayaa min aliimaan dhaaf ayuu yidhi ha xishoodee sariigtu iimaanka ayay ka mid tahay rasuulku xadiis kale ayuu ku yidhi alxayaa'u kulluhu min alkhayr sariigtoo dhan waa khayrka khayr ayay keentaa laa ya'ti ilaa bikhayr xadiis kaloo noocaas ahna markaa waa jiray haddaba aadaabta saddexaad oo looga baahan yahay gabdhaha muslimiinta ah waa inay sariig iyo xishood lahaadaan waa inaysan dhex gelin ajaanibta waa inay ka dhex fogaadaan waxyaabaha ilaahay uu u diiday waa inay ka xishoodaan waxyaabaha rabbi uu xaaraantinimeeyey maalin buu rasuulku saxaabada waaniyey wuxuu dhahay ilaahay ka xishooda
xishooda waxay dhaheen annagu ilaah waa ka xishoonaa rasuulku wuxuu yidhi ilaahay xaqnimo uga xishooda markaasay dhaheen xaqnimaha laga xishooda maxaa loola jeedaa nebigu wuxuu yidhi madaxa iyo waxa ku wareegsan oo aad ilaaliso caloosha iyo waxa ku wareegsan oo aad ilaaliso ninkii sidaa yeela fa ina allaha qad istaxyaa xaqa alxayaa wuxuu ka xishooday sariig tan ugu xaqnimo badan leh waxa maanta khayrka naseejiyey oo samaha loo waayey waa naagaha sariigta beelay oo rabbi amarkiisa iyo waxyaabaha uu diiday iyo waxyaabaha uu xaaraantinimeeyey habeen iyo maalin ku soo jeedo markaa ku dhex jira haddii dad fiican ay ahaan lahaayeen oo xaqa ku toosan oo sariig xaqa la yimaada ilaahay abaal iyo wanaag fiican buu siin lahaa marka arrinta saddexaad oo gabadha muslimadda laga doono waa inay sariig iyo xishood markaa lahaataa arrinta afaraad ee gabdhaha muslimaadka loogu talagalay ama axkaam u noqonaysa ama aadaab ayaga ilaalisa noqonaysa waa inay u labisato habkuu ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay dumarka iyo ragga laba sinji oo kala nooc ah waaye ilaahay waa diiday subxaanahu wa tacaala gabdhaha mu'miniinta sharafka iyo qiimaha ay leeyihiin waxaad ka fahmi kartaa inuu rasuulku yidhi nin alla ninkii fiiriya gabar ajaanib ah ayada oon wax sharci ah ama wax daruuro ah aysan u geynin waxaa ilaah subxaanahu wa tacaala uu ku abaalmariyaa cadaabka midka ugu xanuunka badan nin baa istaagay markaasuu dhahay rasuulka ilaahayow ka waran hal mar haddii gabadha muslimadda indhahayga ay ku dhacaan rasuulku wuxuu yidhi asrif basaraka indhahaaga ka celi mar kalena ha u celinin haddii mar kale aad u celiso dadka cadaabka loo diyaariyey ayaad ka mid tahay haddii hal mar ay ku dhacaan ilaah waa ku cafinaa subxaanahu wa tacaala markaasuu rabbi yidhi waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim waxaad ku dhahdaa wiilasha mu'miniinta ah indhihiina laaba farjigiinana ilaaliya haddaba akhlaaqda afaraad ee laga doono inanta muslimadda ah waa inay labisato zayiga islaamka iyo xila malaabista ilaah uu u diray subxaanahu wa tacaala 9 sano marka ay gaarto ayuu ku bilaabanaa gabadha xijaabka qaadashadiisa inta ay ka yartahay haddii la siiyo waa wanaag badan yahay laakiin marka uu waajibka ku noqonayo waa marka ay qaan gaarto oo 9 sano marka ay gaarto laga bilaabo 9 sano ilaa ay gaarto heer nikaaxa ay ka quusato waxay wadanaysaa dharka jalaabiibta oo xooga badan haddii ay gaarto waqti ay ka quusato mataqaanaa dhalmada ama nikaaxa waxaa u bannaan dharka jalaabiibta ah inay markaa dhigto waayo ilaahay ayaa yidhi walqawaacidu min annisaa naagaha ka fadhiistay oo naagaha ka mid ah allatii laa yarjuuna nikaax kuwaasoo nikaax dambe aan rajaynaynin macnaha dhalmo dambe aan rajo looga qabin oo islaamo waayeela noqday korkooda dembi ma aha buu rabbi yidhi an yadacna hiyaabahunna inay labiska waaweynka dhigaan hayra mutabarijaatin biziina laakiin waa inaysan cawraadkooda iyo quruxdooda adag aysan markaa muujinin wa an yastacfifna khayrun lahunna islaamaha waaweynka xataa inay isxijaabaan oo jalaabiibta ay qaataan ayaa u khayr badan buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala waa laga cafiyey macnaha jalaabiibtii weyneed laakiin inay qaadato ayaa u fadli badan oo markaa u khayr badan laakiin gabadha shaabadda ah oo dhallinyarada ah 9 sano ka bilow ilaa ay heerkaa ka gaarto haddii la arka wejigeeda iyo labadeeda kafood maahana meel kale waxay u diyaar noqonaysaa booskii cadaabka ay ka geli lahayd lugaheeda waa dhuxulihii jahannamo gacmaheeda waa dhuxulihii jahannamo madaxeeda waa dhuxulihii jahannamo sida rasuulku u tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu yidhi asoo la hadlaya gabdhaha muslimaadka ah waqul lilmu'minaati yaqdulna min absaarihinna waxaad ku dhahdaa gabdhaha muslimaadka ah indhihiina laaba oo waxaad ka laabtaan waxyaabaha ilaahay uu idiin diiday subxaanahu wa tacaala xumaanta ha ku fiirinina waxyaabaha rabbi uu xaaraantinimeeyey ka leexiya saasuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala waqul lilmu'minaati yaqdulna min absaarihinna waxaa loogu dhawaaqa magac lagula hadlo midka markaa ugu fiican indhihiina ka laaba macaasida iyo xumaanta waxaad ilaalisaan furushtiina iyo farjigiinu rabbi yidhi oo walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minhaa ha u muujinina cawraadkiina iyo waxyaabaha ziinadiina ah ilaa inta muuqata maahane inta muuqata dhowr macno ayay culimmada mufasiriinta ku sheegeen qaar waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa wejiga iyo labada gacmood qaar waxay dhaheen waa isha bidixdaa keliya qaar waxay dhaheen meel ay muujinaysa ma laha ilaa wixii dabayl ama waxyaaba noocaas oo kale ka qaada maahane wax kale oo ay muujin karto inanta muslimadda markaa ma jiro marka ilaa maa dahara minhaa wax alla wixii soo daahira oo cawraadkeeda ka mida maahane inta kale buu rabbi leeyahay yaysan u muujinin ajaanibta walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna waxaad saarataan khumurtiina khumur waxaa loola jeedaa marada xoogga leh oo adag oo gabadha muslimadda isku xijaabayso labada dhinacood markaa saartaa calaa jiyuubihinna macnaha garbaha loola jeedaa carabta caadadooda hore waxay ahaan jirtay inay madaxa daboolaan oo garbaha ay faydaan bannaankana ay ku soo baxaan gabdhaha muslimiinta maanta sheegto islaamka u jooga caadadooda waxay tahay
daboolaan oo garbaha ay faydaan banaankan ay kusoo baxaan. Gabdhaha muslimiinta maanta sheegto islaamka u jooga caadadooda waxay tahay timaha inay faydaan, jirka inay faydaan, dirac qafiifna banaanka ay kusoo baxaan. Waxaad u malaysaa jaahiligii hore inay ka fiicnaayeen. Marka ayagoo madaxii daboolay kuwii hore ayaa ilaahay asoo sii adkaynaya wuxuu yidhi labada macnaha garbahana markaa ku dara, khumurtiina kusoo raariciya, macnaha madaxa ha ka soo bilowdo ilaa hoos iyo kalxamaha iyo intaasi hoos iyo waxa jirkeedoo dhan dhar saas u wada gaara markaa ha soo qaadato. walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libacuulatihinna, cawraadkiina ha u muujinina, quruxdiina ha u muujinina, ziinadiina ha u muujinina ilaa ragga idin qaba maahana buu rabbi yidhi, ow aabaa'ihinna ama aabbayaalka idinka idin dhalay. wax mashaakil ah male inanta muslimadda ah haddii aabbaheed ay ku ag libisato ama mataqaanaa cawraadkeeda masalan timaheedii iyo gacmaheedii intaasoo dhan haddii ay ku ag faydato wax mashaakil ah kuma jiraan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u banaynaa. maxaa yeelay ayadoo dhanba waa gabal ka yimid aabbaheed iyo hooyadeed. markaasuu rabbi leeyahay aabbaheed maahane qof kalayaysan u muujinin cawraadkeeda. qofka saddexaad alla wuxuu yidhi ow aabaa'i bacuulatihinna, ragga idin qaba aabbayaalkood oo macnaha ninka ku qaba aabbihii asagana wax mashaakil ah ma laha. ow abnaa'ihinna waa qofka afaraad, wiilka adiga aad dhashay maahane qof kale ha u muujininuu rabbi yidhi. ow abnaa'i bacuulatihinna, ragga idin qaba wiilashooda. masalan waa wiil aad eedda u tahay oo odagaagu uu dhalay laakiin islaan kale ay soo dhashay asagana wax mashaakil ah oo ku jiraa malabu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala. ow ikhwaanihinna, ama wiilasha walaalihiina oo markaa idinla dhashay haddii inanta ay salaanto ama ay ku ag labisato ama ay ku ag sheekaysato ama ay ku ag shallaysato wax mashaakila kuma jira asagana. ilaahay wuxuu kaloo raacsiiyey aw banii ikhwaanihinna, wiilasha walaalihiin ah wiilasha markaa ay dhaleen waa wiilka aad adiga eedada u tahay oo walaalkaa uu dhalay. aw banii akhawaatihinna, walaalihiin gabdhaha ah wiilasha ay dhaleen waa wiil habaryar ah u tahay asagana wax mashaakil ah ma laha. aw nisaa'ihinna, ama naagaha muslimaadkaad isla tihiin. masalan gabdhaha muslimaada keliya ayaa isla jooga, wiil ajnebiya lama joogo. haddii ay safaleetiga dhigato, haddii ay gacmaheeda qaawiso, hadday luqunteeda feedda wax mashaakila kuma jiro. haddii laakiin gabarh kaafirada meesha ay joogto looma ogola inanta muslimadda ah inay isdhar dhigto ama cawraadkeeda ay markaa tusiso. maxaa yeele midaan waa shaydaamad, waa midaan qiimo lahayn, waa midaan sharaf lahayn. inanta muslimadoo qaaliga ah oo qiimaha le jirkeeda inay aragto ayuu rabbi u diiday subxaanahu wa tacaala. aw maa malakat aymaanuhunna, waxay midigyaalkiinu hanteen. masalan waxaa jiri jirtay waxyaabo dagaalkii marka la qaado oo kale rag la soo qafaalo kaafiriintii waxyaabaha marka laga soo qafaalo waxa adiga midigtaadu ay hanatay haddii uu yahay ragna wax mashaakil ah malabuu rabbi yidhi. maxaa yeelay adiga ayaa maamulkiisa intaasoo dhan markaa iskale. aw taabiciin hayri ulil irbati min alrijaal, ama rag taabiciin ah. taabicayaal waxaa loola jeedaa naagaha ayay raacaan. sababta taabiciin loogu bixiyeyna waa rag calooshooda keliya ka fekera, wax dan naag ah oo ay leeyihiin ma jiro, wax shahawaad oo ay leeyihiin ma jiro. waxa naagaha loo raacsiiyeyna naagaha raashinka ayay haayaan, sidaa darteed ayay cuntada ku raacaan keliya. marka ragga noocaas ah oo aan naagaha damcaynin oo wax damac naaga aan lahayn ayagana wax mashaakila male ayuu rabbi yidhi. aw iطifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati الnisaa, ama ciyaal yar yar ah oo aan kala aqaanin cawraadka naagaha waxay kala yihiin iyo si loola jeedo ayadana wax mashaakila male. marka ilaa markuu intaa ka shookeeyey 11 qofood uu yidhi intaa maahana in kale jidhkiina ha u muujinina ayuu rabbi raacsiiyey. walaa yadribna biarjulihinna, lugihiina dhulka ha ku garaacina. marka aad soconaysaan masalan marka hore lugahay waxay gashan jireen waxyaaba dahab iyo waxyaaba markaa laysu qurxiyo. markay soconayaan ayay dhulka ku garaacayaan lugahooda si ay ragga meesha maraaya u maqlaan oo markay ugu soo leexdaan. markaasuu rabbi leeyahay ha garaacina. marka aad soconaysaan lugihiina dhulka ha ku garaacina. liyuclama maa yukfiina min ziinatihinna, si loo ogaada waxa idin qarsoon oo markaa quruxdiina ah. watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun, war tooba keena, rabbi u soo noqda. wax alla wixii xijaabka horay uga tegey caawa laga bilaabo tooba keen, ilaah waa ku cafinaya subxaanahu wa tacaala. quruxdaadii aad muujisay waxaad ku ahayd qof dalaal iyo baadi ku jira. caawa haddii aad tooba keento ilaah waa ku dhaafaa subxaanahu wa tacaala. meel kastoo xumaan aad ku samaysay wanaagu ilaah kugu bedelaa, laakiin laga bilaabo berito yaan la arkin jirkaaga sida ilaahay uu kugu sheegayna habkaasoo kale u labiso. waayo meel laguu soo joogaa ma taqaanid. malakumuudka hadda inaad meesha ka kici doonto, inaan albaabkaas gaari doonno, in beri ilaah uun waaga noo berisin doono, waxaasoo dhan lama yaqaano. marka gabadha muslimadday tooba keen oo ilaahay usoo noqo subxaanahu wa tacaala. mar kale yaan la arkin xumaan macnaha cawraadkaaga iyo waxyaabaha ilaahay uu kuu diiday.
diiday rasuulku wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamun calayh waxaan ka naxsanahay oo aan ka murugaysanahay gabdho gadaal imaan doona aakhiru zamaanka oo diracyo kafiifa qaadan doona oo bannaanka ku soo bixi doona ayagoo luquntooda la arkaayo timahooda la arkaayo gacmahooda la arkaayo gabdha noocaasaa imaan doonuu rasuulku yidhi salawaatullaahi wasalaamun calayh way iilan yihiin oo xaqay ka leexdeen dadkiina xaqay ka leexinayaan gabdhaha noocaasa ha la wacdiyo xaqa ha loo sheego hadday diidaanna ha la lacnado maxaa yeelay malcuuniin waaye waa kuwa la lacnaday jannada ilaahay inay galaan iska dhaaf buu rasuulku yidhi wallaahan ku dhaarta inaysan carabteeda helaynin 500 oo sano meel loo socdo ayaa jannada carabteeda laga helaa xataa haddii la geeyo naagtaa la heli mayso mana arkaysa jannada carabteeda rasuulku wuxuu yidhi silsiladooyin 70 dhudhun ah oo dhudhunka malaga ah oo naarta laga soo bixiyey ayaan arki doonaa ayagoo afka laga geliyey gadaalna looga soo bixiyey malaa'igta ay jiidayaan cadaabkana loo sii wado waa ii qaylinayaan yaa muxamed ayay dhihi doonaan intaan gadaal u fiiriyaan leeyahay ha ila hadlina diinta waa idin soo gaarsiiyey ha ila hadlina waa idiin sheegay xaqa ha ila hadlina wax kastoo xaq ah horey ayaan idinkugu soo tilmaamay waxaan arki doonaa ayaga oo darkayga agtiisa jooga oo la jiidaayo oo hasha baadida ah marka halaha kale ay soo dhex gasho sida looga raacdaynayo oo kale loo raacdayn doono mar alla markay ii wacdaan waxaan u malaynayaa dad fiican inay yihiin maxaa yeele ummatu maxamed bay ahaayeen ummaddeeday ka mid ahaayeen ilaahan kala hadlaa marka hore ayuu yidhi markaasaan leeyahay ilaahayo kuwaa qoomkaygay ka mid yihiin kuwaa dadkayga ka mid yihiin ee maxaa dhacay ilaahay wuxuu igu leeyahay adiga gadaasha ayay diinta ku cayaareen kama aysan suulin inay jidhkooda banaynayaan kama aysan suulin in timahooda bannaanka ay soo bixinayaan kama aysan suulin inay dadka xamanayaan saasay xaaladoodu ahaan jirtay kama aysan suulin inay irtido samaynayaan oo gadaal ay u noqonayaan in alla ilaa ay kasoo dhinteen marka saa laygu yidhaahdo ayaan leeyahay buu rasuulku yidhi fasixqan liasxaabi saciir asxaabu saciir ha la dheereeyo cadaabka meesha ugu weyn ha la geliyo ummatu maxamed ayaan nahan maanta ku andacoonaynaa ummatu maxamed lama cadaabaa la yidhi ummatu maxamed jannada albaabkee doonay ka gelaysaa ummatu maxamed xaqiiqa waxaa loola jeedaa qof ilaahay diintiisa raacay subxaanahu wa tacaala walaalay haddii aad tahay ummatu maxamed xaqiiqa ah jirkaaga dabool ilaahay ka baq subxaanahu wa tacaala diinta islaamkana ku soco lugtaada yaan la arkin jirkaaga yaan la arkin qaybaha rabbi uu diray oo dhan markaa wada qari gurigaaga marka aad joogto si alla saa doonto isyeel haddayna rag ajaaniba kula joogin dumar keliya haddii aad tihiin adi keligaa haddii aad tahay walaalaha haddii aad ku dhex jirto ama ninkaaga aad la joogto kayfa amkin si alla sidii kuu suura gashaa markaa macnaa u labiso laakiin marka aad la joogto rag ajaanib ah ha banaynin ilaa intuu rabbi banay ku yidhi mahana subxaanahu wa tacaala haddii kale waxaa raashin kuu noqon doona naagaha xijaabka ka tegey oo naarta la geliyey farjigooda dheecaankii ka yimaada kaasaa lagu cabsiin doonaa waxaa lagu siin doonaa raashin oo ilaah uu ku magacaabay dariic oo ah geed qodxeed oo dhuunta istaagaya mar alla markaad sharaab u wacato rabbi waan waraabinaynaa buu rabbi yidhi naagaha noocaas ah waxaan ku waraabinaynaa biyo oo xamiim ah way cabi doonaan fashaaribuuna shurba alhiim ratiga cudurka hiimka qabo si waxu cabo oo kale ayay cabi doonaan waa rati macnaha aan dhergaynin mar kastana oonka aan ka go'aynin saasoo kale u cabi doonaan mandhacirkoodaa go'go'ayu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala naartuu ku soo daadanaa sidaasi ka qurux badan ayaa loo qalqaa haddana naartiyaa u imaanaysa waa cunaysaa sidiisi ka darnay noqonayaan rabbina waa qalqaa subxaanahu wa tacaala waata ilaahay oo yidhi kullamaa nadijat juluuduhum baddalnaahum juluudan hayrahaa mar kasta oo maqaarkooda uu gubto maqaarkii aan ahayn ayaan u samaynaynaa ayuu rabbi yidhi liyaduuqu alcadaab say cadaabka u dhadhamiyaan say cadaabka u dareemaan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala saas u yeelaa haddaba saad jirkaaga u dabooli weyso ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala cadaabka uu kugu daboolaa saad ilaahay aayadihiisa u nacdo ayay jannada kuu nacaysaa saad shayaadiinta amarkooda u jeclaato ayay naarta kuu jeclaan doontaa ilaahay ha laga cabsado subxaanahu wa tacaala naagaha muslimaadka ah rabbi ha ka xishoodaane diinta rabbina ha sameeyaano wuxuu rabbi u diraayo ha yeelaano wuxuu rabbi u diidayna ha ka tagaano subxaanahu wa tacaala ilaahay maruu ka sheekaynayey gabdhaha muslimaadka habkay u labisanayaan rasuulkana lala hadlayay salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annabiy qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihinna waxaad ku dhahdaa rasuulki ilaahayow gabdhaha aad dhashay kuwa aad qabto iyo gabdhaha mu'minaadka ahba waxaad ku tiraahdaa jirkiina qariya oo waxaad samaysaan dhar la yidhaahda jalaabiib markaa jirkiina ka soo raariciya yudniina macnaha waxaa loola jeedaa marada gabadha intay madaxa ka soo bilowdo hoos u soo raaracdo oo ilaa iyo dhulka soo gaartaa taasaa markaa loogu talagalay daalika adnaa an yucrafna buu rabbi yidhi taas ayaa ugu dhow in la aqoonsado oo la ogaada gabdho muslimiina inay yihiin oo marka aan la dhibin rabbi subxaanahu wa tacaala kaana gafuuran raxiima
waa alla dembiga dhaafa oo naxariis badan. jirka gabdhaha muslimaadka ah waxaa la rabaa inay qariyaan oo ay daboolaan. inanta muslimadda ah dharka ay hoos ka qaadanayso koontaroolka iyo inay dadka koontaroolaan looma dirsanin. wax alla waxay rabta ayay hoos ka qaadanaysaa walow goonnada allah ka dhige. laakiin waxyaabaha laysku haystaa waxaa ah marada ay kor ka qaadanayso. marada kor ay ka qaadanaysa naagta waa inuu noqdo maro ilaah subxaanahu wa tacaala habkuu amraayo marka ay yihiin maro ayada ku dhegan jirkeeda. haddii uu noqdo cadaabkay iska diyaarinaysaa. haddii uu noqdo mare jirkeeda laga suurayn karo laga arkaayo waxay iska diyaarinaysaa ma'wadka ama maqcadka ama booska naarta ay ka geli lahayd. haddii uu noqdo maro caraf badan oo caraf lehna waxay iska diyaarinaysaa ayadana jahannama meesha ugu urka iyo xanuunka badan. waa gabar kasta oo ilaahay diintiisa markaa diida. war dharka ugu koreeya oo aad qaadanaysaan ha noqdo zayi looga sooca wiilasha. dharkiin yuusan u ekaanin dharka ragga. dhar idinku dhegan ayaa markaa la diidaa. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa u soo gashay asmaa binti abi bakar. waxay tiri rasuulka ilaahayow waxay tiri macnaha markii u soo gashay ayaa wuxuu arkay ayadoo dirca raqiiqa markaa wadata. markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh yaa asmaa idaa balaqat ilmar'atu gabadha hadday gaarto waktigii xaydka ah ama waktigii qaangaarka ah uma bannaana ilaa la arko wejiga iyo kafaynka maahana meel kale. haddii gabar muslimada ay tahay saas ayaa markaa loogu talagalay. marka xadiiska wuxuu tilmaamayaa alla subxaanahu wa tacaala agtiisa in gabadha muslimadda wanaag ay uga yeelan karto wuxuu yahay inay malaabista islaamka qaadato, inay rabbi ka cabsato subxaanahu wa tacaala. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay gabdho fara badan aakhiru zamaanka inay soo bixi doonaan. gabdhaha marka ay soo baxaan waxay u labisanayaan buu yidhi timahooda ayaa qayb ka mida bannaankay u soo bixiyaan. safaleetigu markay saartaan ayaa waxay ka soo bixinayaan horay ayay markaa usoo bixiyaan. ayadoo xaaladoodu sidaa ay tahay ayaa habkaa waxaa u labista gabdhaha zaaniyiinta ah. hadday idinka hor yimaadaan oo aad aragtaan zaaniyiin ayaa tiin markaa ku dhaha. gabar kasta oo timaheeda qayb ka mida bannaanka keenta qaybna qarisa waa calaamadaha zunaada lagu yaqaano. zaaniyiin waay alla subxaanahu wa tacaala agtiisa qiimo kuma laha. waa dadka foornada qabriga looga dhigaayo oo ilaahay uu ku holcinayo subxaanahu wa tacaala. inanta muslimadda waa inay rabbi ka baqdaa subxaanahu wa tacaala. waxyaabaha ilaahay uu u dira waa inay samaysaa. wuxuu rabbi u diida waa inay ka tagtaa. habkaasna waa inay u labisataa. xijaabka macnihiisa ma ahan wax kale. xijaabka macnihiisa waxaa loola jeedaa yaan lagu dareemin sida aad tahayna yaan la ogaanin. jirkaaga yaan la sifaynin. habka aad u taalana yaan la ogaanin. saas waayo macnaheeda. cabaayadda xunkay gabdhaha ay wataan oo ay u maleeyaan in janno iyo wanaag lagu gaaraayo alla agtiisa waxaa laga yaabaa inuu rabbi ku holciyo subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay habkii loogu talagalay ma ahan gabadha muslimadda gacanteeda habka ay u taalo in la sifeeyaa ma ahan. jirkeeda sida uu u yaalo in la sifeeyaa ma aha. dharkaa jalaabiibta ayaa loogu talagalay. jirka dhar ka soo laalaada ayaa markaa loogu talagalay inuu noqdo. rasuulku wuxuu waaniyey naagaha marka ugu horraysa ragguu la hadlay. markaasuu dhahay wiil kastoo idinka mid ah oo sarwaalkiisa anqawga dhaafsiiya ama qoobabka naarta ayaa cunaysa anqawga iyo inta u hoosaysa. qof kastoo macawistiisa saas yeela ama sarwaalkiisana waa la mid ayuu rasuulku yidhi. gabar muslimada oo dadka gadaal ka joogtay ayaa istaagtay. waxay tiri rasuulka ilaahayow kayfa yasnacu nisaa bidayoolihinna dumarku sidee yeelayaan ayagana marada dheeraanteeda iyo dariskeeda. rasuulku wuxuu yidhi falyurqiina shibra hal taaka ayay ku daraayaan. hal taaka markii ay ku dareen ayaa maradii waxay gaartay anqawga hoostiisa. markaasay umu salama waxay tiri ama gabadhii muslimadda ahayd oo su-aasha weydiinaysay idan tankashifu aqdaamahunna yaa rasuul allah lugaheena caddaankiisa la arkaa rasuulka ilaahayow maxaan samaynaa. rasuulku wuxuu yidhi falyurqiina diraacan walaa yazidna. waayahay hal dhudhun raaraciya hana ka siyaadinina. mara hal dhudhun anqawga hoos loo raacsiiyey waa inay jilbaha ama macnaha lugaha hoos ay kasii martaa. gabadha muslimadda anqawgeeda ama lugana ka dhigaynaa gabdha xuural cayn oo kale ah. candhuuf ayaga ay leeyihiin baa la yidhi haddii adduunka la keeno oo adduunka loo soo tufo qoraxda kuleylka badan oo dhan oo iftiinka leh iftiinkao dhan wuu ka baaba'aa. waa gabdhaha xijaabka wata oo diinta islaamka ku camalfala oo ku dadaala awaamirta rabbi subxaanahu wa tacaala. intaa ka bacdi inanta muslimadda waxaa laga doonaa inay la timaado baarinimo fal. ay u baarinimo fasho hooyadeed iyo aabbaheed li'annahu labada waalid oo dhalay waa inay u baari noqoto. gabadhu haddii qur'aanka ay dhammayso oo diinta oo dhan ay wada taqaano oo ay ku camal fashay xijaabato salaadna aynan dhaafin hooyo ama aabbana ay ku caasiso wax ka soo qaada male. waxayna u diyaar garoobaysaa booska cadaabka ay ka gelayso. maxaa yeelay waalidka walow kaafiriinba ha noqdaano in loo cadaalad sameeyo ayuu rabbina amray subxaanahu wa tacaala. ilaahay kitaabkiisa ayuu ku yidhi insaanka waxaa loo dardaarmay labadiisa waalid inuu asxaan sameeyo. hooyaa soo xambaartay dhibaatay ku soo xambaartay mashaqay kusoo
ka goysay xambaartay dhibaatay ku soo xambaartay mashaqay ku soo ka goysay xamligiisii fisaalkiisa saasoo markaa ahaa wiilka baariga rabbi ilaah buu ku mahad celiyaa subxaanahu wa tacaala hooyadiisii aabiisna waa u mahad celiyaa hooyada iyo aabbaha wax kastoo ay kuu diraan sameey wax alla waxay kuu diidaan ka tag ilaa macaasi ilaahay maahine haddii macaasi alla waalidka ay ku amraan laga yeeli maayo hooyo iyo aabba hadday dhaan xijaabka ha la dhigo laga yeeli maayo hadday dhaan salaada ha laga tago laga yeeli maayo laakiin wax kasta oo khayr ah markaa waa lagu adeecaa ayaganba wanaag diidaynine waa in waalidka la adeecaa hooyada kuma sii jirto nin baa rasuulka u yimid wuxuu dhahay rasuulka ilaahayow man axaqu bixusni suxba yaa igu xaqnimo badan qof aan la saaxiibo rasuulku wuxuu dhahay ummuka hooyada yaa ku xiga ayuu yidhi ummuka hooyada yaa ku xiga ayuu yidhi ummuka hooyadaa buu rasuulku yidhi mar afaraadkii ayaa la yidhi abuuka aabbaha waay 3 mar ayay ka xaq badisay hooyada aabbaha haddaba hooyada oo loo xaq sameeyo jannada wanaaggaa lagu gaaraa rasuulku xadiis ayuu ku yidhi aljannatu taxta aqdaami alummahaat jannada hooyooyinka lugahooda hoosteeda ayay markaa ku jiraan hadday kaaga kacaan waa gelaysaa haddayna kaaga kicinna geli maysid marka sidaa darteed alla subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado khayrka iyo wanaagga marka ha lagu dadaalo marka arrintaas shanaadna waa inay la yimaadaan gabdhaha muslimaadka ah oo hooyo iyo aabba loo asxaan sameeyo ku hadal celinta hooyo aabba lagu hadal celinaayo ha la joojiyo hadalka kulul ee lagula hadlaayo ha la joojiyo indha xun haddaad ku fiiriso ahlu naaraad noqonaysaa hadal xun haddaad kula hadasho ahlu naar baad tahay waxdhi ay dhibsanayaan haddaad ku dhahdo ahlu naaraad tahay ilaahay ka soo qaadi maayo diinta aad baranaysay wax laga soo qaadaayana male ilaa inaad waalidkaaga u asxaan samayso maahane leannahu rabbi subxaanahu wa tacaala waalidku sabab buu kaaga dhigay inaad adduunka timaado haddii aad rabto wanaag iyo khayrna saasaad markaa samaynaysaa ujeeddada lixaad ee loogu talagalay gabadha muslimadda ah oo looga baahan yahay waxay tahay waa inay wax ka ogaato dahaaraadka iyo waxyaabaha nadaafadda ah maxaa yeelay dahaaradu gabdhaha muslimaadka ah soonkooda iyo salaadooda iyo cibaadaadkooda saasaa loo aqbalaa waxaa jira waxyaabo inay ka dahaaro qaataan oo ay ogaadaan waxa uu yahay iyo meesha uu ka yimaado maahane si kale inuusan rabbi diinta uga aqbalaynin waayo rasuulku xadiis ayuu ku yidhi salawaatullaahi wasalaamun calayh guri ay joogaan dadka aan janaabada iska nadiifinin oon ka dahaaro qaadanin iyo gabdhaha caadada aan aqoonin sida laysaga nadiifiyo malaa'igta ilaahay ee naxariista ma soo galaan waa inay bartaan ayna ku dadaalaan saas ayaa markaa loogu talagalay marka dahaaraadka inay wax ka ogaadaan ayaa suuragal ah in alla intii ilaahay naga karsiiyo ayaan wax ka sheegaynaa dahaaraadka ayadana bacdamuusan rabbi ka xishoonin xaqa ee ilaahay uu yidhi ina allaha laa yastaxyi min alxaqi inanta muslimadda waa inaysan ka sariiganin kana xishoonin xaqa laakiin waxyaabaha ilaahay uu u diray macnaha uu u diiday waa inay ka xishootaa dhibaatada maanta gabdhaheenna haysataa waxay tahay way ka xishoonayaan diinta barashadeeda ma baranayaan caadada sida ay tahay ma baranayaan dahaarada sida ay tahay qalla maa qalla waa gabdha yar yar ah oo macnaha farakutiris ah indhahaysa hana lagaga waramo ee sidee buu ilaah u tilmaamay subxaanahu wa tacaala si aan janno ku gaarno si aan ilaahay wanaagga xaggiisa ula golanno aaday markaa u yar yihiin laakiin kama xishoonaysa wiil ajnabi inay salaanto ma ka xishoonaysa inay ag fadhiisato ma ka xishoonaysa inay gacanta ka qabato ma ka xishoonaysa inay jirkeeda qaawiso laakiin waxyaabaha diinta way ka xishoonaysaa haddaan waxay ka tilmaama dahaarada rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa in kuntum junuban fadaharu haddaad tihiin dad janaabo qaba markaa isnadiifiya oo dahaaro qaata alla aayad kale ayuu ku yidhi يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى dadka mu'miniinta oo salaada ha u dhawaanina idinkoo sarqaan ah oo markaa wareersan oo macnaha dhacdhacaaya ha u dhawaanina xataa taclamuuna maa taquuluun ilaa ad ogaataan waxa aad dhahaysaan walaa junuban ilaa caabir sabiil hana u dhawaanina salaada idinkoo janaabo qabaa ilaa idinkoo wadagoynaya maahane oo masaajidka ka soo gudbaaya xataa taqtasiluu ilaa aad ka qubaysataan macnaha aayaddaatan inta hore waxay tilmaamaysaa khamriga intaan aad loo xaaraantinimaynin cali bni abi aalib iyo koox saxaabada ka mida ayaa khamri cabay baa la yidhi in alla intaan la xaaraantinimaynin weli salaada ayuu imaam u noqday wuxuu aqriyay suuratu lkaafiruun markaasaa wuxuu aqriyay hab aan loogu talagelin wuxuu yidhi qul yaa ayuha alkaafiruuna acbudu maa tacbuduuna antum tacbuduuna maa nacbud waxyaaba noocaas oo kale ah markaasuu ilaahay aayadda soo dejiyey subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuuna maa taquuluun ilaa aad ogaataan waxaad dhahaysaan ha cabina saasaa markaa la yidhi ilaa markii dambe xaaran ahaashadii markaa ay soo degtay marka idinkoo janaabo qabana ha u dhowaanina ayaa la yidhi ilaa aad soo qubaysataan
gabadha la yidhaahdo ummu salama waxay tiri gabadha la yidhahdo ummu sulaym ayada oo ka warramaysa waxay ahayd ummu sulaym abi dalxa xaaskiisa ummu salamana abu salama qabay markuu ka dhintayna rasuulka ayaa guursaday salawaatullahi wasalaamun calayh waxay tiri rasuulka ilaahayow ina allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodee fahal cala almar'ati guslun ida ixtalamat inantu haddii ay ixtilaam samayso qubays miyaa korkeeda ahaaday seena markaa macnaha ay u dahaaro qaadanaysaa ixtilaam macnaha riwaayada kalaas fasiraaya haddii inantu ay seexato oo ay aragto waxyaabaha ragga ay arkaan oo kale qubays miyaa korkooda ahaaday rasuulku wuxuu yidhi nacam idaa ra'at ilmaa haa haddii ay biyo aragto markaa way qubaysanaysaa way dahaaro qaadanaysaa sidaa ayuu yidhi marka xadiiska wuxuu tilmaamayaa gabdhaha muslimaadka in looga baahan yahay haddii ixtilaam ay sameeyaan in ay dahaaro qaataan habka loo qubaysanayana gadaal bay noogu imaan doontaa kolley wuxuu xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa in haddii waxyaabaha ragga ay arkaan oo kale ay arkaan ayaguna markaa inay qubaysanayaan rasuulku su-aalkan oo la weydiiyey oo ahayd macnaha manaamka waxyaabahay ku aragto rasuulku wuxuu yidhi taqtasilu way qubaysanaysaa ummu salama waxay tiri baa layihi ummu salama wahal yakuunu haada rasuulka ilaahay waxaa ma noo sugan yahay markaasuu rasuulku yidhi nacam haa waa idiin sugan yahay fa min ayna yakuunu shubbah isu ekaashaha xaggee buu ka yimaadaa haddii uusan markaa idiin sugnayn gabadha muslimadda waa inay ogaato habka markaa looga qubaysanaayo iyo waxyaabaha noocaasoo kale haddii ay aragto in dahaaro markaa looga baahan yahay waxyaabaha laga qubaysto oo laga dahaaro qaato ama laga weyse qaato saddex ayaa loo qaybiyaa biyaha ta koowaad waa wax la yidhahda wediga waxaa la yidhahdaa biyo cad oo adag oo ka soo baxa bacda albawl markaa yimaada qofku marka uu kaadiyo kabacdi waa biyo markaa ka yimaada waxay kaloo culimmada qayb ka mida ay dhaheen qofku markuu waxyaabo culays badan uu qaadana taasna markaa way ku yimaadaan rasuulka caaisha macnaha radiallahu tacaala canha waxay tidhi biyaha noocaasa aqlabka waxay yimaadaan bacda albawl intaa kabacdi inantu waa dhaqanaysaa macnaha waxay samaynaysaa dhaqitaan keliya laakiin wax qubaysa oo dushooda ahaaday taa markaa ma jiro biyaha labaad waa biyo la yidhaahda medi biyaha medida ayaguna waa biyo cad oo waxoogaa yar markaa adag intaa kabacdin waxay ku yimaadin baa la yidhi cinda atafkiiri fi ljimaaca marka qofka uu ku fikiro waxyaaba jimaaca ama cinda almulaacaba wiilkii gabadha markay ciyaaraan ama waxyaaba noocaas oo kale ninkii xaaskiisa saasay markaa ku yimaadaan maca daalika qofku ma dareemo soo bixitaankooda biyaha noocaas ahna waa laga dhaqdaa keliya waana laga weys qaataa laakiin wax qubaysa oo qofka korkiisa ahaaday ha yaraatee ma jiro rag iyo dumar labadaba way ku badan yihiin khaasatan marka casuubada la yahay ama dhallinyarada la yahay sida rasuulku uu tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayh qaybta saddexaad waa biyaha manida la yidhaahdo sidoodaba culimmada qayb ka mida ayaa waxay ku tageen inay najaaso tahay laakiin sida daahirkaa biyahaas waa inaysan najaaso ahayn laakiin sida istixbaabka ah waxaa la sunneeyaa marada meel alla meesha ay gaarta in la dhaqo oo la nadiifiyo haddii ay qoyan tahay laakiin haddii ay qallasho waxaa bannaan in la jejebin kara keliya sida caaisha laga wariyey radiallahu tacaala canha waxay tiri waxaan ahaa mid ka dhaqda rasuulka maradiisa manida marka ay qoyan tahay markay qallashana cijideeda ayaan ku jejebin jiray sida ay marka caaisha tiri laakiin biyaha noocaasa waa laga qubaystaa laba si ayayna ku yimaadaan waa ninka iyo naagta oo daaqil ahaan isugu tagaa ama gabadha ama wiilkaoo markaa ray ahaan ku arkaa labada noocaasa waa laga qubaystaa marka gabadha muslimadda waxaa loo sunneeyaa inay ogaato rabbina ay ka baqdo subxaanahu wa tacaala intaa kadib rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh wuxuu tilmaamay qofka hadduusan ka nadiif qaadanin habka rasuulku uu yidhi ha looga qubaysan uusan u qubaysanin in la gelinayo cadaabka meesha ugu xanuunka badan in la gelinayo cadaabka meesha ugu xun taas ayaa axaadiista qaybo ka mida markaa laga faa'iidaysanaa marka intaa waxay tilmaamayaan waxyaabaha inanta muslimadda loogu talagalay xagga janaaba ahaanta inay ka ogaato waa arrinta noocaas ah waxaa jira wax la yidhaahdo xayd ama dhiigga caadada ah waa nimco ilaahay uu ku manaystay hibe ahaanna loo siiyey dumarka lalama wadaago ayaga ayuu ilaahay gooni ahaan u siiyey inay ku shukriyaan oo ay rabbi ugu mahad celiyaan waa shay laga doono gabdhaha muslimaadka ah haddii asagan aan wax fiirino bal si ay gabadha muslimadda wax uga ogaato sidiisaba xayd waxaa la yidhaahdaa luqada marka la fiiriyo waa saylaan waa shay dareero ah oo ka yimaada waa shay socda ayaa markaa la yidhaahdaa laakiin xagga mataqaanaa diinta waa dhiig ka soo baxa farjiga dumarka wakti ay caafimaad qabto ayadoo aan wax sababa ah marka ay imaanin sida ay markaa ku yimaadeen maca daalika ayaa culimmada qayb ka mid ah waxay yidhaahdeen wuxuu ka soo bilowday gabdhihii reer bani israa'iil ciqaab ilaah uu ku ciqaabay ayayna ahayd laakiin war sugan oo lagu kalsoonaan kara ma aha dhiigga caadada wuxuu ku soo dhacay xaawo oo ay ugu horraysa naag ilaah uu abuuray subxaanahu wa tacaala waa socon doonaa in alla inta inan muslimada ama gabaroo dhanba
adduunku marka ay joogto. haddaba gabadha muslimadda waxaa laga rabaa inay asagana wax ka ogaato habka uu ku yimaado iyo sida uu u go'o iyo waxyaabaha ilaah subxaanahu wa tacaala diinta dhexaanta uu yeelay. axkaamta xaydka waa axkaamta diinta islaamka ugu dhibka badan marka la fiiriyo. haddaba haddii ilaah subxaanahu wa tacaala uu qadaro in allah inta rabbi uu naga karsiiyo ayaan asagana markaa wax ka sheegi doonaa. marka tacriifkiisa kaasaa loola jeedaa, waana dhiiggaa soo baxa ayadoon wax sababa ah markaa imaanin. owlaad dhalanaysa sababtoodana kuma yimaadaan oo xillay caafimaad qabto ayay inantu markaa aragtaa. wakhtiga uu ku bilowdo diinta islaamka kuma hayno xadiis walaa aayad noo tilmaamay wakhtigaa ayuu dhiigga caadada ku bilowdaana ha yaraatee ma jirto. laakiin culimmada macnaha ahlulcilmiga ah badankoodu waxay dhaheen wuxuu bilaabanaa inantu marka ay 9 sano gaarto. 9 sano wixii ka yar haddii gabadha dhiig lagu arko ha u ictiqaadinina inuu dhiig caadaa yahay, laakiin waa dhiig jiro ah oo nooc kale marka uu ku yimid. laakiin wax alla wixii 9 sano ka soo bilowday wixii ka weyn waa dhiig caada ah, taas ayuuna ugu bilowdaa. diinta islaamka saasoo kale kuma hayno wakhtiga uu go'aayo dhiigga caadada, inkastoo culimmada qayb ka mida ay dhaheen islaamtu hadday weynaato dhiigu waa ka go'aa. ayaga laftigooda daliil cad oo ay dhaheen da'daas ayuu ku go'aa ha yaraatee ma jirto. axaadiistii aayadahana kuma arkin da ahaan iyo inta uu ku go'o dhiigga caadada. haddii islaan ay waayeel noqoto oo da' weyn ay gaartay dhiigna lagu arko waa dhiig caada ah, maxaa yeele lama hayo wakhtigaas ayuu dhiigu markaa go'aa. marka inkastoo oo xaaladdu ay sidaa tahay ayaa gabdhaha muslimaadka loogu talagalay saa marka inay ogaadaan. midabkiisa waxaa loo shardiyaa madow inuu ahaado. faadima binti abi xubaysh baa rasuulka u timid, waxay dhahday rasuulka ilaahay dhiig baa iga socday seen yeela. rasuulku wuxuu yidhi ina damu lxayd damu laswad, dhiigga caadada waxaa lagu yaqaanaa waa dhiig madow. in alla dhiigga kaa socda hadduu madow yahay soonka iyo salaada ka tag buu dhahay. haddii laakiin dhiig nooc kale uu kaa yimaado dahaaro iyo nadaafad la imow, wayse qaado oo qubayso, soonka iyo salaadana la imow. dhiig caadaa ma aha laakiin waa dhiig jiro ah. gadaal ayaana ka arki doonaa istixaada ayaa la yidhahdaa magaciisa. waxaa kaloo laga yaabaa dhiig inuu guduud noqdo. alxaasil mar kasta waxay ku xidhan tahay bilowga inanta sida uga bilowda dhiigga, taasuu markaa ku xidhan yahay. waxaa dhici kartaa inuu guduud ku bilowdo, waxaa dhici kartaa midab nooc kalaa inuu markaa ku bilowdo. alxaasil mar kasta oo bilowdo in alla inta uu dhiigu nooca uu ku bilowday uu yahay, hadduu iska bedelo ma aha dhiig caada ah, laakiin waxay la imaanaysaa inanta dahaaro iyo nadaafad. soonka iyo salaaday la imaanaysaa. alla subxaanahu wa tacaala cibaadaadkiisoo kalena markaa way samaynaysaa. waxaa dhici karta inuu isku darsado madow, inuu adeeg yahay, waxoogaa kar ahna uu leeyahay. saddexdaa markuu isku darsado aad buu u dhib badan yahay sida axaadiista aan ku aragnay. marka intaa ka bacdi haddii saddexdaa uu noqdo asagina waa dhiig caado ah. saas ayayna inanta waxay uga tegaysaa soonka iyo salaada iyo waxyaabaha ilaahay cibaadaadkiisa oo kale ah oo marka gadaal aan ka arki doonno. muddada macnaha muddo ahaanta inta uu haynayo gabadha muslimadda dhiigga caadada islaamku ma tilmaamin asagana, xadiisna ma hayno, aayadna ma hayno tilmaamaysa inta ayuu hayaa. waxaa ugu yar 3 maalmood baa la yidhi, 7 ayaa dhexdhexaad ah, 5 iyo 10 maalmoodna way ugu badan tahay dhiigga caadada. ma ahan waxyaabo daliil ah oo xaq ah oo markaa loo haayo, laakiin xagga bay-ad ahaan iyo xagga caada ahaan marka la fiiriyo ayaa markaa sidaa ah. waxaa dhici karta bishii keliya inantu 3 mar inay caado aragto, waa suuragal, maxaa yeelay lama haayo muddo ahaan inta uu hayn kara dhiigga caadada. waxaa dhici karta midansan weligeedba uu ku dhicinba, waa suuragal. waxaa laga yaabaa 3 maalmood inuu mataqaana haayo, waxaa dhici karta 7 maalmood. laakiin dhibaatada gabdhahayna haysataa waxaa ah matalan haddii dhiigga uu ku dhaco oo 3 maalmood uu ka go'o, waxay sugayaan ilaa iyo 7 maalmood oo soonka iyo salaada ay ka tegayaan. gabdhaha noocaasa ilaahay agtiisa wax faa'iida ay ku leeyihiin ma jiro. waxay noqonayaan dadka ilaah ugu talagalay cadaabka gelitaankiisa. intaa maalmood oo ay salaada ka seexdeenna waa loo haystaa. isla markii uu go'o walow 3 maalmood ama 5 maalmoodba ha noqdee dahaaray la imaanaysaa inanta muslimadda ah, waxayna la imaanaysaa waxyaabaha cibaadaadka ah ee rabbi uu diray subxaanahu wa tacaala. muddada labada xayd u kala dhexaysaa xadiis ma hayno, aayadna ma hayno ku cad waqti noocaas ah ayuu ka maqnaanayaa dhiigga caadada. waxaa dhici karta bishiiba 1 mar inay aragto dhiigga caadada oo macnaha 7 maalmood uu haayo, 23 maalmood oo kalena marka uu noqdo mid ay mataqaanaa ka daahir tahay, taasaa markaa suuragal ah. waxaa dhici karta 15 maalmood inuu maqnaado, waxaa dhici karta 13 maalmood. alxaasil bayaad ahaanteedii ku xidhan tahay, laakiin annagu ma hayno nas iyo xadiis ama aayad tilmaamay intaasoo maalmood ayuu markaa ka maqnaanayaa. marka intaa ka bacdi inanta muslimadda ah waxay ogaanaysaa inuu caadada ay ka go'day 2 arrin bay ku ogaanaysaa. arrinta koowaad waxay tahay maxalka dhiig uu ka imaanayay oo qalalaa. arrinta labaadna waxay tahay wax la yidhaahdo qussa bayda, macnaha xoor cad inay ka soo baxdo maxalkii dhiig uu ka soo baxay. labada arrin markay aragto inanta muslimadda waa inay u degdegtaa ayna ogaataa in caadadii marka ay ka go'day. hadday aragto labadaa arrin kadib haddii waxyaaba caruna gadaal ay ka yimaadaan ku tirin maysa dhiig caada inay yihiin, dahaaray la imaanaysaa soonka iyo salaadana markaa way la imaanaysaa. dhiigga waxaa daba yaala dhiig kale oo la yidhahda nifaas.
dhiigga nifaaska ah waxaa loola jeedaa waa dhiig ka soo baxaa farjiga dumarka waxayna ku yimaadaan owlaad dhalanaysa sababtooda walow canuga ay dhashay dhicisba ha noqdee mar alla marka islaan wax dhasho ayuu dhiiggaa markaa yimaadaa muddada uu naagaha haaya waxaa ugu yar laxda macnaha daqiiqad ayaa ugu yar waxaa ugu badan 40 maalmood sida laga faa'iidaysanaya xadiis gabar muslimada laga wariyey waxay tiri waqtigii rasuulka tayna dhasha 40 maalmood ayay soonka iyo salaada ka tegi jirtay waxaa la amri jiray inay salaada soo qallayso laakiin lama amri jirin inay soonka soo qallayso macnaha waxaa la amri jiray inay soonka soo qallayso laakiin lama amri jirin inay salaada markaa gadaal ka soo qaldayso sida ayay markaa tiri xadiiska waxaa laga faa'iidaysanaa 40 maalmood inuu ugu badan yahay dhiigga nifaaska ama dhalmada in naagaha markaa u haayo 40kii maalmood oon la gaarin haddii naagta dahaaro ay aragto waa qubaysanaysaa inay salaada soo qalli jirin inay soonka soo qallayso laakiin lama amri jirin inay salaada markaa gadaal ka soo qaldayso sida ayay markaa tiri xadiiska waxaa laga faa'iidaysanaa 40 maalmood inuu ugu badan yahay dhiigga nifaaska ama dhalmada in naagaha markaa u haayo 40kii maalmood oon la gaarin haddii naagta dahaaro ay aragto waa qubaysanaysaa soonka iyo salaadii cibaadooyinka kalena waa la imaanaysaa laakiin naagaheen waxay caadaysteen 40 ku jirnaa waxaa laga yaabaa 5 maalmood 6 maalmood macnaha 7 beri ama waxyaabo muddo dhowr maalmood kadib ah inuu dhiiggii markaa ka go'ay haddaad aragto dhiiggii nifaaska oo go'ay walow 5 habeen kadib ha noqdee waxaad u degdegaysaa dahaarada waxay culimmadu isu qabteen 40 maalmood wixii ka badan see la yeelaa shaaficiyadu waxay qabaan in 20 maalmood loogu daraayo laakiin culimmada axaadiistu waxay ayagu qabaan inaan maalin xataa loogu daraynin oo 40 maalmood haddii dhiigga uu istaagi waayo la dhihi maayo dhiiggii nifaaska waaye laakiin waa dhiig cilad kale markaa u socda oo jirro markaa ah saas ayaa markaa la yidhi marka dhiigga noocaasoo nifaaskana sida ayaa markaa loola jeedaa marka naagaha nifaaska qaba iyo naagaha xaydka qaba waxyaabaha ka xaaraamta ah waxaa ugu horeeya waa soonka iyo salaada haddii ay soomaan oo ay salaadaan laga aqbali maayo waana ku dambaabayaan ma soomaysid mana salaadaysid labada la imaan maysid soonka gadaal waa ka soo qallaynaysaa laakiin salaada qalladeeda lagaama rabo inta maalmood oo aad fasaxa tahay marka soonka iyo salaada labada waa ka mamnuuc inay markaa la yimaadiin sidoo kale waxaa ka xaaraama gabdhaha nifaaska qaba ama gabdhaha qaba gabdhaha nifaaska qaba iyo kuwa gabdhaha nifaaska qaba iyo kuwa dhiigga caadada qaba waxaa kaloo ka mamnuuca waxa la yidhaahda dawaafka oo inay dawaafaan beydka ayaa markaa ka mamnuuca marka inay dawaafaan ayaa markaa ka mamnuuca li'annahu gabadha muslimada ah way xajin kartaa haddii nifaas ay qabto dhiig dhalmo ama dhiig xayd labadaba laakiin waxaa ka mamnuuca dawaafka beydka masalan haddii ay tagto xaramka oo ay dawaafto dawaafkii ugu horeeyey oo maca daalika xajka ay guda gasho masalan ayadoo safi iyo marwa marayso oo kale ama carafo taagan oo kale ayaa waxay isku aragtay dhiiggii caadada markaa waxay samaynaysaa xajkeeda caadiga usoo wada gudanaysaa haddiiba mar dawaafulquduum iyo dawaaful-ifaada ay dawaaftay wax kale oo laga rabaa ma jiro haddii ay macnaha inta kale oo xajka ka dhiman tuurashadii iyo seexashadii mina intaasoo dhan caadi ayay usoo wada samaynaysaa dawaafka la yidhahdo dawaaful wadaacna way ka soo tegaysaa waana laga cafinaa laakiin haddii inantu ayadoo u socota xajka uu ku dhaco dhiiggii caadada ama jidka dhexdiisa ay ku dhasho ama mataqaana umul ahaan bay u kacdo markaa waxay ka bilaabaysaa dawaafka maahane acmaasha kale markaa la qabanaayo safa iyo mar way ordi kartaa carafa way istaagaysaa waxaasoo dhan ay samaynaysaa marka uu u dhammaado xajkeeda haddii dhiigga uu ka go'o way sugaysaa ilaa dhiigga uu ka go'o marka dhiigga uu ka go'o ay ka dahaaro qaadato ay ka qubaysato kadib ayay dawaafaysaa dawaafkii horey uga tegey laakiin haddii aynu marka hore ay dawaaftay dawaafka ugu dambeya way ka soo tegaysaa laakiin haddii aynan dawaafin waa qasab in dawaafka ay soo sugto ilaa caadada ay ka go'od ayna markaa meeshaa joogaysaa waxaa ka mamnuuca labada naagood inay masaajidka ku nagaadaan masaajidka kuma nagaan karaan rasuulku wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh uma banaynin aniga wiilka janaabada qaba iyo gabadha xaydada ah inay masaajidka ku nagaadaan ama masaajidkaba labada markaa mamnuuc ayay ka tahay masxafka qaadashadiisa ama qaadkiisa asagana markaa waa ka mamnuuc gabdhaha noocaasa oo markaa qaba dhiigga nifaaska iyo dhiigga mataqaanaa xaydka labadaba waxaa kaloo ka mamnuuca gabdhaha noocaas oo kalea labadaba in wad'i markaa lagu sameeyo haddii xaafis ay yihiin in raggooda uu u tago ayaa markaa ka mamnuuca yuhuuddu waxay ahaan jireen baa la dhahay haddii naag ayay ka mid ah ay caado ay ku dhacda gurigay uga tegi jireen wax lama cuni jirin lamana cabi jirin waxna kuma darsan jirin raashinka ay samaysana lama cuni jirin rasuulka ayay weydiiyeen saxaabada ilahay wuxuu soo dejiyey wayas'aluunaka cani ilmaxiid dhiigga caadaday ku weydiin doonaan ee waxaad ku dhahdaa qurun wey ee ka fogaada factazilu nisa'a fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna ilaa ay ka dahaaro qaadanayaan hadday macnaha ay daahir noqdaan uga imaada meeshuu rabbi idinka amray markaasuu rasuulku yidhi isnacuu kulla shay ila nikaax wax kastaa ku sameeya ilaa nikaaxa maahane gabadha caadada qabtaa way cilaaman kartaa
way shanlaysan kartaa way qubaysan kartaa timaheeda waa antaqaana waxay doonto ay ku samaysan kartaa intaasoo dhan shay mamnuuc ka ah ma ahan gabadha muslimadda ah oo caadada qabtaa waxay karisa waa la cuni karaa waxyaabaha ama dharka ay dhaqdo waa daahir laakiin caadad ahaan ayaan waxaan u qabnaa raashinka ay karisana inaan la cunin inaan agteeda loo dhowaan karin caaisha waxay tiri radiallahu tacaala canhaa marka aan caadada qabo rasuulka marka aan hilib cunaayo leedahay meesha aan ka goobta laftaan u dhiibi jiray meesha afkayga uu mataqaana aan ka saaray ayuu asagana markaa ka goosan jiray wa ana xaa'idun aniga oo xaa'ida ah waxaan samayn jiray bay tiri marka aan sharaabka cadaayo meesha aan afka saaray ayuu asagana afka u cadi jiray hambadii intii aan soo reebay wa ana xaa'idun anoo xaa'ida ah asagoo masaajidka ku ictikaafaaya ayuu madaxiisa iiga soo gelinaa mataqaanaa gurigayga waa u dhaqi jiray waana u shanlayn jiray wa ana xaa'idun aniga oo xaa'ida ah anoo xaa'idaa ayuu ku seexanaa bay tiri dhabtayda wuxuuna ku akhrin jiray qur'aanka jirka intiisa kale xaaraan ma aha gabadha muslimadda ah laakiin waxaa nijaasada ah waa maxalkaa keliya ee marka uu ka soo baxaayo haddaan u gudubna habka looga qubaysanaayo oo loo dahaaro qaadanayo waa habka soo socdaa nebiga sala allahu calayhi wasalam gabar muslimada ayaa u timid waxay tiri rasuulka ilaahayow rabbi xaqa kama sariigtee marka aan ka qubaysanayo dhiigga caadada ama xaydka maxaan sameeyaa rasuulku wuxuu dhahay waxaad soo qaadanaysaa cad yar oo suuf ah mumasag ah oo la carfiyey macnaha udug waxyaaba noocaas oo kale loo sameeyey waxaad raacraacsiinays macnaha fatadahirii biha buu yidhi isaga dahaaro qaado waa weydiisay waxay tiri maxaad ula jeedaa subxaana allah tadahirii biha buu rasuulku dhahay intuu ka jeestay markaasa caaisha waxay tiri waan arkaayey waan soo qabtay inantii waa soo jiiday markaasaan u sheegay ujeeddada rasuulka uu ka watay masalan meesha waxaa laga faa'iidaysanaa gabadha muslimadda ah marka ay ka qubaysanayso waxay qaadanaysaa cad suuf ah oo mumasag ah oo markaa la udgiyey marka ay qaadato waxay ku nadiifinaysaa maxalka dhiigga uu ka imaanayey way raacraacsiinaysaa wax alla wixii kara ama wasaqoo meesha leh si ay markaa u baaba'do 3 maraad 3 mar ayna sidaa yeelaysaa haddii gabadha muslimadda timaheeda ay adkayso masalan ay kala xirxirto ama timaheeda ay wanaajisato waajib kuma aha timaha inay furfurto marka ay qubaysanayso leannahu gabar ayaa rasuulka u timid waxay tidhi waxaan ahay inan timaheedii adkaysatay ee ma u furfuraa markaan caadada ama janaabada ka qubaysanaayo rasuulku wuxuu yidhi maya 3 qaadasho madaxaada aad ku shubto taasaa markaa kugu filnaanaysaa intaa keliya ayaa kugu filan marka ugu horaysa oy sidaa yeesho gabadha muslimaddaa gacmahay dhaqaysaa way istanjoonaysaa way weyse qaadanaysaa 3 qaadasho oo sacab biyo ah ayay intay qaadatay madaxa ku shubaysaa markay aragto timaheeda inay wada gaareen biyihii ayaa waxay u soo gudbaysaa jirka intiisa kale waxaa looga baahan yahay inay biyaha ku camimto marka ugu horaysa niya ayaa lagama maarmaan ah haddii niyadda laga waayo qubayska waa ku soo celinaysaa gabadha muslimadda ah kow ayay ka soo bilaabaysaa waxay qubaysatayna malaha maxaa yeelay niyada waa waxa lagu kala saaro caadada iyo diinta qof kastaa waa iska qubaystaa caada ahaan laakiin waa inaad niyo la timaadaa niyada macnaheeda ma aha marka aad musqusha gasho inaad waxyaaba ku akrinayso laakiin marka aad rabto inaad macnaha soo dahaaro qaadato waa inaad niyadda gashataa inaad ka soo dahaaro qaadanayso qubays waajib ah maca daalika markay sidaa yeesho jirkeeda meel kasta oo dulduleel ah ayay biyaha gelinaysaa way sandaarsanaysaa dhegaha iyo sankaba allah ka dhige meelahaasoo dhan hadday meel ka tagto koobay kasoo bilaabaysaa qubayska ilaahayna wuxuu ka yeelayaa ma jiro haddii jirkeeda qayb ka mida ay ka tagto ama ay sandaarsan weyso ama dhegaha duleelka ay gelin weyso ama faraha dhexdooda ay kala gelin weyso ducana laga aqbali maayo soonna laga aqbali maayo salaadna laga yeeli maayo marka inanta muslimadda waa inay sidaa ogaataa rabbigeedan ay ka baqdaa subxaanahu watacaala marka ay sidaa yeesho oo habka ay u qubaysato waxaa iska bannaan 2 hab in loo qubaysto habka koowaad wuxuu yahay niyo inaad la timaado caadi ahaanna biyaad isugu shubto oo jirkaaga dhan aad wada gaarsiiso gadaalna aad ka weyse qaadato saas uu kaaga ansaxaa habka laakiin sunnada rasuulka u samayn jiray waxay ahayd gabdhahana uu amray in marka hore gacmaha la dhaqo gacmaha markii la dhaqana ay istanjoodaan marka la istanjoodo macnaha ay weyse qaadato markay weyse qaadato 3 saacad oo biyaha madaxeeda ay ku shubto jirkeeda dhan ay wada gaarsiisa biyaha lugahana gadaal ay ka dhaqdo ayadoon weyse qaad dambe marka aan loo baahanin sidaana markaa waa suuragal waa habka sunno ahaanta markaa loo tilmaamay oo la rabo in markaa ay sameeyaan marka gabdhaha muslimaadka allah subxaanahu watacaala wanaag iyo cizi ayuu amray hadday sidaa yeelaan hadday habka wax ogaan waayaanna alla agtiisa wanaag iyo qiimo oo ay ku leeyihiin ma jiro labadaa dhiig waxaa daba yaala dhiig saddexaad oo la yidhahda dhiig istixaado ah dhiigga istixaado wuxuu ka yimaadaa farjiga naagaha makaanka ugu soo sokeeya ayuuna ka soo baxaa wuxuu ku yimaadaa jirro sababteeda la xukun ma aha labadii dhiig ee aan soo tilmaannay dhiigga istixaadada ah gabdhaha way ku wareeraan badankooda 3 ayaa loo qaybiyaa dumarka
haddii ay ogaan weyso asagan ama ay baran weyso ilaahay wuxuu ka yeelayaa ma jiro ayadana guryaha ay joogtaan lacnadaaya waxaa lacnadaaysa raashinka marka ay cunayso marka waa inay ogaataa ayna barataa 3 ayaa loo qaybiyaa dumarka waa dhiig laga yaabo inuu socdo weligiisna uu dhammaanin gabdhaha saxaabada qayb ka mida 7 sano ayuu ka socday oo xiriir ayaa la yidhi marka gabdhaha waxay ka samaynayaan baa la yidhi 3 arrin midood haddii ay tahay gabar uu ku bilowday maanta dhiiggii oo macnaha uu wada socdo uuna kala go' la'yahay waxay samaynaysaa bil kasta 6 maalmood ama 7 maalmood ayay soonka iyo salaada ka tegaysaa inta kale way dahaaro qaadanaysaa soonka iyo salaadana waa la imaanaysaa 23 maalmood ama 24 maalmood ee markaa harsan waa haddii hadda uu ku bilowday talantalin markaa uu socdo haddii caado hore ay ugu dhici jirtay oo dhiiggeedu uu ahaan jiray dhiig nooca mesela madow buu ahaan jiray tusaale markaan ka soo qaadano bishaan intii madowga ahaa wuu isbedelay oo madowgii markuu dhammaaday ayaa dhiig nooc kalea markaa yimid naagtaa waxay samaynaysaa in alla inta dhiiggii ay taqiini oo midabka hore ahaa uu ka socdo waa dhiig caado ah laakiin inta macnaha ka soo hartay oo dhan waxay la imaanaysaa dahaaro way weysqaadanaysaa way qubaysanaysaa soonka iyo salaadana waa la imaanaysaa gabadha saddexaad waxay tahay caadi ahaan bay waxay u qabi jirtay 5 maalmood inuu dhiigu ku dhaco bishaan saabuu ahaa uu ka go'ay bishii kale saas oo kale uu ka go'ay bishii kale 5 maalmood bishii afaraad ayaa waxay isku aragtay 5tii maalmood inuu dhaafay bilna uu sii gaaraayo adiga 15 maalmood marka uu gaaro ayaa waxay iska dhigaysaa bil kasta 7 maalmood ama intii caadada u qabi jirtay ayay waxay ka tegaysaa soonka iyo salaada inta kalena markaa waa samaynaysaa gabdhaha dhiigga istixaalada qaba waxaa loo sunneeyaa in salaad kasta ay u weyse qaataan wakhtiga aan gelinna ma weyse qaadan karaan waxay samaynaysaa wakhtiga ugu horeeya oo dhiigga uu ka go'o ayay qubaysanaysaa 2 hab ayay salaad u tukan karaan sida rasuulku uu tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayh habka koowaad ay u tukan karaan waxay tahay in salaada subax marka la gaaro ay qubaysato oo ay weyse qaadato salaadii subax ay tukato marka la gaaro duhurka ay qubaysato duhurka ay sugto ilaa uu ka dhammaan rabo oo 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo markay ka harsan tahay duhurka oo casirka uu soo geli rabo ayay qubaysanaysaa waa weyse qaadanaysaa labadaas salaadoodna waa jamcinaysaa duhurka iyo casirka marka la gaaro maqribka waa qubaysanaysaa way weyse qaadanaysaa maqribkay gadaal u dhigaysaa cishaha iyo maqribkay markaa jamcinaysaa habkaasay u tukan kartaa waxay kaloo samayn kartaa salaada subax inay u qubaysatay u weys qaadato ayay keligiis tukanaysaa marka la gaaro salaada duurka waa qubaysanaysaa waa weyse qaadanaysaa duurkay tukanaysaa casirkana waa u weyse qaadanaysaa keliya casirkay tukanaysaa maqribka way qubaysanaysaa way weyse qaadanaysaa maqribkay tukanaysaa salaada cishahana waa u weyse qaadanaysaa cishay ku tukanaysaa habkaasay markaa samaynayaan laakiin waxaa laga rabaa ayaga salaad kasta inay u weyse qaadataan haddii salaad markay u tukanayaan waxaa loo sunneeyaa inta ugu horaysa ama markay salaada galayaan inay isticmaalaan waxyaabo dhiigga istaajinaya walow subba allah ka dhige taa marka inay isticmaalaan maca daalika ayaa gabar saxaabiyada waxaa laga soo wariyey labadeeda lugood inta u dhaxaysa ayaa baaf loo dhigaya masaajidka rasuulka ayadoo ku tukanaysa dhiigga uu ku socdo salaadiin ay tukanayso kuwa maanta jooga waxay yihiin iyo meeluu ka yimid iyo sida loo kala dahaaro qaato iyo waxyaaba uu kala yahayba intaasoo dhan markaa maba kala yaqaaniinba waa gar inuu ilahayna ciqaabo subxaanahu watacaala gar ayaan uleenahay inuu ilah dhanka nala gooyo subxaanahu watacaala gar ayaana u yeelanay dhagxaan inuu rabbi roob nooga dhigo maxaa yeele wax dahaaro yaqaana rag iyo dumarba naguma jiraan wax baranaya ma nagu jiraan laakiin wax kastoo heesa ah wax kastoo fisqi ah wax kastoo ciyaaro ah maca daalika waa la sameeyaa waxaa dhici karta hadhow in la dhaho waxaan maxaa laga sheegaa waxaa dhici karta wax weyn in laga dhigo maca daalika fisqiga iyo kidbiga waxyaabaha beentana iyo xanta aan laga xishoonin qof kasta uu dhex galo waxyaabaha diinteena ku tacalluqdana qof baranaya markaa ma jiro waay marka gabdhaha muslimaadka waa inay saa u kala kontaroolaan waa inay ogaadaan rabbi subxaanahu watacaala diintiisa khayrka iyo qiimaha in lagu gaaraayo qofka haddii marka uu barto gabdhaha dhiigga istixaalada qaba waa soomayaan waa tukanayaan waa dawaafayaan xataa raggooda u tegi karaa axaadiista saasaa markaa laga faa'iidaysanaa marka haddaba inanta muslimadda ah waa inay waxaasoo dhan markaa ogaataa axkaam aad iyo aad u fara badan iyo aadaab fara badan ayuu rabbi subxaanahu watacaala dushooda yeelay haddii ilaahay yidhahdo subxaanahu watacaala firaaqatanoo kale aan aragnana saasaan usii wadi doonaa aadaabaha kale ee markaa looga baahan yahay idinkana dadaala xaqana barta rabbina ka baqa subxaanahu watacaala ilaah waxaan idinkaga baryayaa in alla inta aad diinta ku dadaalaysaan inuu rabbi danihiina iyo wanaagiina ku dadaalo